qaaliga maanta waxaan meeshan ku sameeyay biryani boneless chicken iyo breeze aan inaba caadi ahayn. waa cunto aad iyo aad special ah, qurux badan, runtii qof walba maanta cuno yani runtii yani ku farxayo maarta kuna qanacayo cuntada noocan ah. sidaan u sameeyay iyo qaabkan u sameeyay haddaad si tartiib ah u daawato insha Allah waad sameyn kartaa. asxaabta waxaan idin ka rajeynayaa insha Allah inaad subscribe iyo saartaan siina share galeysaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت دمانتي مدين سلامي. halkan waxaa ku jira saad arkaysaan waa basal dhagyare, qorfo, curry powder, basal la qalajiyay, 2 xabo maraq digaag ah, 3 xabo oo toon ah, dhagyaraha saaran inuu sheego ku jira asigana, iyo caleentan magaceeda ma garanayo laakiin dukaanka caadiga way taalaa, bariiska lagu karsadaa, iyo 2 xabo oo maaragtay chicken fillet ah oo boneless chicken ah. inta waxaa ku jirto soya sauce, halkan waxaa ku jiro waa heel la shiiday, milix, waxaa halka ku jiro waa maraq digaag, andhahe curry powder, halkaas waxaa ku jiro waa qorfo shiidan, waxaa dhinac yaalo waxaa weeyaan waa food color, toon qalalan oo halkaas koonaha taala, tan guduudana waa paprika powder ama barbaroni qalalan. kan waxa waaye mood galatay la dhahaa, waa cream oo maaragtay cuntada lagu karsado. waxaan idinka hilmaamay sinjibiil qalalan, sinjibiil qoyan aan dhahay, sinjibiil qoyan ayaa maaragtay halkaa ku jiro saad arkaysaan, sinjibiil qoyan ayaa halkaa ku jiro. chickenkiisaan ayaan usoo jarjaray, cadcadkaas ayaan u jaray sidaa qiyaasta aad u jarjaraysaa chickenka. marka halkaan aan ku ridanaa chickenka, kadibna waxaan ku dareynaa xawaajiyaashii aan horey idinkugu soo sheegay, maaragtay sinjibiilkii, curry powderkii, milix, maaragtay food color, heel shiidan, qorfo shiidan ayaa ku jiro, iyo paprika powder. marka intaan ayaan maaragtay isku qasayaa. gacmahana mar walba waa inay dhaqan yihiin oo gacmaha nadiif ay yihiin mar walba. marka intaan ayaan si fiican iskugu qasayaa. kadib waxaan ku dari doonaa soya sauce. markaasaan isku dhex geliso waxaa loo baahan yahay inaad dhigto muddo 30 daqiiqo ah. hadda waxaan ku darayaa waa soya sauce, muddo 30 daqiiqo waa inaad dhigtaa soo spiceskii maaragtay digaaga si fiican ama maaragtay marinationkii digaaga si fiican inuu dhexda ugu galo, xawaajiyaashii soo taqaanaa. marka inaad si fiican isku qastaa loo baahan yahay maaragtay si fiican isku dhex galaan. wax yar oo biyaan ku darayaa yani siday maaragtay يعني si fiican maaragtay isku gargaaro, wax yar biyaan ku darayaa soo si fiican isku qasmaan oo spiceska si fiican maaragtay isku wada gaaro. halkan waxaa saaran waa digsigii bariiskii ahaa. hadda marka bilaabanaa howshiisii bariiska ayaan maaragtay dalacinaa. marka hadda basashii iyo waxaan ku darayaa iyo maaragtay iyo caleentii iyo qorfihii ayaan maaragtay isku shiilayaa kow. waxaa kaloo ku jiro paprika powder, yani maxaa la dhahay paprika powder Soomaaliga ba ii gambiye. paprika powder waxa waaye filfil madow, filfil madow powder ah. waxaan ku darayaa waa toontii aan soo yaryareeyay. marka waxaa kaloo ku jiro yani gudgudana ka arkaysa waa basal qalalan ayaa ku jirto. igaraal naqda taas waan ka hilmaamay. waxa yar gudgudan waa basal qalalan, basal qoyan iyo basal qalalan labadaba waan ku daray. basal la soo shiilay oo qalalan waxa jirta dukaamada lagu gado, iyo 2 xabo cadcad oo maraq digaag aan ku daray. maasha Allah inaba marka wuxuu nasfic markaas ku shisho waxa soo baxaya caraftii soo baxaysa maaragtay. marka maasha Allah waan geenaynaa. bariiskana marka muddo saacad ayaan biyo la dhigay, oo marka uma baahan inaad biyo badan biyo sidii kale bariiska aad buu jilcaya. bariiskii waa kan ku shubaya. marka bariiskan muddo saacad ayaan biyo la dhigay.
marka hadda waxa waaye wax yaran walaajinana waan daboolina bariiska. hadda hooshii digaaga bilaabnaysa marka biryani boneless chickenkii. كثيرا معقول بعد ما عرفت وقد قدنيسا في لبدا ديناc u bislaadaan. saliidana zaaid uma kuleynayso, waxaa loo baahan yahay yani inaad si tartiib ah saliid badan looma baahna, saliid yar oo ku shiishido kaliya loo baahan yahay. ما شاء الله دقاق waa kasoo soo bislaaday. hadda waxaan ku dareynaa mood garatay ama creamka cuntooyinka lagu karsado ayaan ku dareynaa. waxaan ku darayaa idinka hilmaamay kabsar caleen. wax yar kabsar caleen ayaan maaragtay dusha kaga daray. ما شاء الله سيفي عمد وصوب بسلادة صوص ياسين رسيم بين نقدين. ما شاء الله بريسكي نوا بسلادة بريسكو حن كدري سعفران كدري أما فود كلر هاد بساوي تقانان. ما شاء الله سيدا معرتي رسين أيون نقد صوصكي تشيكن كي ويحيرو محسكون نقدين رسين عرفتي إن بعادي ما مركز وحن بلا بنا بريسكي نقولين عندكتان. marka maxay ahayd tole ma sha Allah waxa kala wada maartay ku dari doona digaagan dusha kaga dari doona insha Allah. ukunna waa maartay waan kariyay ukun laba xabo ukun dusha waan kaga dari doona insha Allah. waa cunto easy ma sha Allah yani hada isku daydaan aad sameey kartaan. waa cunto culus ma waa cunto aad iyo aad u macaan badan oo caraf badan runaantii ma sha Allah. marka cuntada xataa yani gacantaada kama goyso daa dhaqda xataa carafteeda ma sha Allah. waa cunto hindi waaye biryani boneless chicken inaba caadi maahan. ma sha Allah waxaan ku diri doonaa laba xabo oo kuna ku diri doonaa oo gooni u kariyay. أصحابته ما شاء الله صار كيسا عنتهم وحكوسا بحث عنت آدي أدو قروح بدن أن إن بعاديهن ما شاء الله يعني سير سهل وإيزي والمارت كوسا ما سكرتان آدنو أفوضه آدنو معنتر نانتي آدي معنتر ما شاء الله. وروح يدنا أنت بمارتي ويسكول هذا عنتده وحلو بها يعني سدح شيء لهذا أرتي وعن عرف مركز يعني عنتده عاية تلاسو عارف يسوم iyo markaad cunaysid in maaragtay dhadhankeeda ku raaxaysa ka tarnaantii oo dhigi karta maaragtay cunto aad iyo aad u fiican waa maasantiin dhamaantiin asxaabtu. thank you.